xubno wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka soo kormeeray goobaha kala duwan ee ay ka socoto kaalqaadashada codbixintu. wasiirka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland Injineer Cali Siciid Reygal, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Riyaraac, xildhibaan Cabdiraxmaan Shaadh, siyaasi Faarax Askari, siyaasiyad Hinda Jaamac Xirsi iyo kusimaha barasaabka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax ayaa dhammaantood ka warbixiyay kormeerkoodan ku wajahan kaalqaadashada codbixinta. waxaana hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ii farxad saaka iyada gobolkayga ka bilaabantay oo ay bisha 12 tahay sabtida oo maanta ah kaalqaadashadu waxaanu ilaa saaka ku jiray kormeer annaga iyo wasiirka dibadejinta Cali Siciid Reygal, wasiiru dowlaha waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan, wasiiru dowlaha xanaanada xoolaha Mr. Riyaraac, xildhibaan Shaadh, Hinda Jaamac Xirsi oo madaxda xisbiga kulmiyaha. waxaanu ilaa saaka soconaba waxaanu ilaa saaka soconaynay goobihiina iminka shaqadii si wanaagsan bay ku socotaa. maanta runtii waa maalin aad u farxada, waa maalintii ay ka bilaabantay 12 August qaadashada kaarka muwaadinka ee codbixintu gobolada Sool iyo Sanaag. waxaa farxad weyn noo ah in ay gobolkan Saraar degmo doorashada Caynaba ay si wacan uga socoto, dadweynuhuna ay diyaar u yihiin inay qaataan kaarka codbixiyaha muwaadinka. baaqa aan dirayaana wuxuu ku wajahan yahay in guud ahaan gobolka Sool ay qaataan kaarka codbixinta. sida gudoomiyuhu hore u sheegay waftiga wasiirada iyo kooxda kale la socota oo waxa ay kormeer ku soo mareen goobaha codbixintu ka socoto laga bilaabo oog ilaa iyo qararo ilaa kirid. marka goobaha aanu marno dhan waxa si weyn uga socday kaalqaadashada, leemanku waa wada buuxeen, si wanaagsanna dadku waa u soo baxay oo u qaadanayeen kaararka. marka waxaan jeclahay in halkaa laga sii wado si aynu u soo saarno dadkii markii hore footeeyey tiradii aan waxbayna ka dhinaanin. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa la wada yidhi maanta waa maalintii koowaad ee ay ka bilaabantay gobolka Sool iyo Sanaag. annagu waxaanu ku sugannahay Saraar, gobolka Saraar. hadda waxaanu taaganahay degmada Wadaamago. si wanaagsan bay u socotaa nabadgelyada dhammaan gobolka uga bilaabantay, nabadgelyo ku socotaa, dadkuna si fiican bay kaarka u qaadanayaan. anigu waxa qudhaan halka ka diraya waxa weeyaan fariin aan bulshada gaarsiinayo. fariintaydu waxa weeye dad dhalinyaro ah baa jiray oo markii hore ku cayaaray waqtigii dadka iyo dadka magaciisaba oo 2 jeer galay doorashada ama diiwaangelinta dabeedna kaarkoodii gubteen. ilaahay baynu u mahad celinaynaa. dhammaan bashalay gaadiidkii loo kala qaybiyay ee loo kala diray gobolka Sool si nabadgelyo ah ayuu ku gaaray goobihii loogu talagalay oo qaarkood kiiloomitirkoodu aad iyo aad u fogaa. hawsha maanta bilaabantay oo bisha 12 ay tahay August iyaduna dhammaan goobihii la geeyay waxay uga bilaabantay si wanaagsan oo hufan oo habsami ah. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay sidaa wanaagsan ku dhamaato oo ay nabadgelyo ku soo hoyato. waxaan aad iyo aad runtii ugu mahad celinayaa dhammaanba hawl